wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waliba tababaran qabatay dadka talagalay inay daawayaan dadka xoolo dhaqatada ee ka nool deegaanada hooskoya degmada Baydhabo dadkan oo ku shalkooyan afar tuulo hooskoya degmada Baydhabo oo shale reebay salbu boqol itir iyo bonka ayaa waliba tababarka soo doonay 20ka bil toddobaad ilaa iyo 29ka bil toddobaad 2020ka tababarkan oo ay soo kaalada hayaan wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed iyo hay'adda NRC ayaa waliba lanka talagalay in la hormariyo dadka xoolo dhaqatada ee mashruuc oo socdo doona 4 sano ayaa waliba maalgelinta fuliyaha hay'adda NRC qaybtiya BRICS waliba isoo koobaya biyo guriyeen raashin horumarinta talaalada xoolaha iyo la dagaalanka cudurrada tababarkan oo furay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed mudane Cumar Maxamed Cabdullaahi ayaa waliba uu sheegay in wasaaradda ka howlanta sidii la dagaalamo lahayd cudurrada waan lagu talaalo xoolo iyo neeto irabtiro cudurradaasay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سين سلامة دمانتين dadka ku qayb galay seminaarku oo lagu tababar doona daaweynta xoolaha iyo cudurrada xoolaha ku dhaca dhammaantiin salaamantiin salaamku damba ma isin sheegay sida hadaan warka ku qabo in isin tababar hor aan qaadateen tababarkuna hadii ay refresh oo waxyaabaha isin hor aan qaadateen isin xasuusiyo waxyaabo kale na lisin ku kordhi doono gaar ahaan cudurrada hata ku dareera koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan deegaanka Baydhabo cudurrada hata jiraan in isin wala lisin ku sheega iyo qaabka la daaweeyo mayl eraay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tababarku insha Allah hadii Ilaahay arabi doonto programku isku saabsan sidii dadka lan deegaamay deegaansho lan kareeb lahay oo programka saabsan u sii maadaama dadka iska jirtaan beeraley iyo xooley beerweyne qabtaan hadana xoolageyna dhagada haytaan in isin deegaankii si roogdaan xoolo ka jiran umba cudurrada ka dhacaan isin ka daaweytaan tababar sheel sin siyahay tan kale ku muhiimsan way buaha oo eed uun ka faraxsana maanta tababar hor in isin qabtaan tababarkun kale hadii la sin siyahayno ka wasaarad ahaan siin tababarta kudibna lisin ku tabna lisin la xariir siinna gudbiidaan walaagi oo cudurradii jar in isin ha sheegdaan saaragday dawladii markaasay ka dhaqaaqda sidii aragday xoolaha jirnaaye daawi doonto insha Allah ma lisin soo bii doona lan oo wakiil siin ku nagadaw walaagi warbixin ee han gudbii doontaan han sheegasan cudurradii isin aragdaan han gudbiyaasan dhibaatooyinka deegaanka ku jira oo xoolaha hesho ku saabsanaha gudbii doontaan hadii Ilaahay armay eed injeelna sin iyo dawladda in iska hirnaatan walaagi warbixin ee aragday shal qaadataan oo ku saabsan dhinaga xoolaha maadaama uu ku socono wasaaradda xanaanada xoolaha asin dhawaayana may kala siin ku rajeeyana casharada la qaadaan in isin eed ku faa'iideystaan walaagi isin faham waaytaan wasaaradda cinwaansha way siin siiyay hadii Ilaahay ara hawar sidaasan cudur nooc aragnay may haya iraasan dhaqaatiirta oo wasaaradda siin ku jawaab doonto marka hadhawaada tababarkiina geegsiin furinyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi Ibrahim Xasan Ali Ibrahim Tolman warbaahinta dawladda koonfur galbeed Baydhabo